هذا waxaa noogu martaa markaa saddex musharax ayaa inoo jooga Khadar Ali Hakim علي محمد حاج الدريد iyo Bashiir Mirac Jaamac ayaa inala fadhiya waxa jiray xildhibaano hore oo golaha wakiilada Soomaaliland hadaba fadhiya kuwa marka sanad ka tirsan ee golahaas ka tirsan waxa la aaminsan yahay inay ka gaabiyeen tabashooyinka gobolku uu wax badan tabanayo haddaad meesha tagtaan oo aad ku guuleystaan maxaa ka bedelnaan doontaan waxaan rabaa wixii heer qaran kaga maqannaa inaan u baadi doono oo aan dantayda khaaska ah inaan ka horeysiiyo danta caamka ah baa lambar 1 hortaya waxaan doonayaa reer Sanaagna inay ugu doortaan xogogaalnimadeyda iyo warka aan hayo iyo sidaan u ogahay gabadha halka fadhida baahida ay qabto ama waxa ay doonayso xogogaal baan ka ahay marka hore denayaga oo dadka sharaxan eega waxa ay egtaan rikoorkooda keeba been maalin sheegay keeba waxaday keeba wax qiyaamiyay taariikhdeeda dib u akhriya waxa jira kala hor dhaqaaqid fariga iyo galbeedku kala hor dhaqaaqay oo ay u weyn tahay xagga sharciyadu xaggaas sharci dejinta oo in shuruuc cusub oo xeerarka wax laga bedel lagu sameeyo maxaase dadka reer Sanaago hadda idin daawanaya iyo kuwan idin hor fadhiya aad u sheegaysaan oo ah waxaasaan kaga bedelanahay wax way qabteen laba oran karo wax ma qaban wax way qabteen laakiin hadiiba ay jiraan waxay ka gaabiyeen oo waxaan isu sharaxnay inaanu dhamaystirno in cadna weeyaan marka waxaan leenahay inta ka muuqata waa noo muuqata waana waa baahidana inaanu dadaalno insha Allah baan isku daynaa insha Allah xildhibaanada hore waxaan ku arkay xiriirka ay bulshadoodii soo dooratay ku xiran yihiin uu yahay waan kaga diiwaanaanayaa bulshada waan ku xidhnaanayaa gobolkana waxaan ku yeelan doonaa xafiis haddii la doorto Khadar Ali Hakim weydiinaya waxay tahay nin muxaafida oo kulmiye ka soo jeeda beeshaaduna mucaarad u badan tahay sidee baad ku aqbalsiin kartaa su'aashan weydiinaya waxay tahay haddii la idin doorto oo aad kuraasta ku fadhiisataan ma noqon doontaan kuwiina xasuusta